waxaan nahay ganacsatada suuqa magaalada Kismaayo Jubbaland gaar ahaan marka waxaan ka ganacsanaa suuqa kalluunka runtii micnaha farqiga u dhaxeeyo kalluunka badxirinka iyo badfuranka waxay tahay xilliga badxirinka waxay tahay kalluunka aad u yar haddana waxaan ku jirnaa xilligii badfuranka oo kalluunka laga faa'iideysan lahaa waayo sababtoo ah farqiga u dhaxeeyo waxay tahay badxirinka markay tahay kiiliye $6 ilaa $5 maraya haddana markay badda furanta oo xilliyada markii la gaaro kululahan kalluunka aad u soo baataayo macnaha beeciisa hoos u dhaca ilaa iyo $2 $3 badnaan iyo wixii kasii hooseeya weliba marka dadka masaakiinta ah waxaan leenahay inay macnaha suuqa kalluunka ka soo aadaan ay macnaha soo dootaan kalluunka si fiican u cunaan xilliga laga faa'iideysan waaya kalluunkana waxtar wuxuu u leeyahay magaalada iyo dadka masaakiinta marka kalluunka wax xanuun ma leh caafimaad mooyaane digtoorada badanaa hadda takhaatiirta indhaha waxay soo qortaa in madax zaid loo isticmaalo oo waxtar leeyahay